بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. شرقدونك مدنياشا قلها وكيلة حقيقة قاسمياشا إيا هالوذينة قلها إيا باهدة ورباهين تبا وحيدكو السلام يا السلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال الصباح ونكسن xildhibaan cabdicaiis waa ku mahadsan yahay aayadihii qur-aanka ahaa inaa akhriyey iyo kelimaadkiisii wacdiga ahaa ee ka dambeeyeyba isagana ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. mudanayaal, waxaad moodaa in kalfadhigiisteedii afartanaad uu iska gebagabaya maanta bishu waa 25 shan beri baa inoo hadhay. qodobkii ugu muhiimsanaa ajantahana waa inoo horsan yahay oo ah doorashadii aqalka sare. ilaa idinkii insha Allah shaqada muhiimka ah aynu sugaynaa taa weeye. iyadana waxaan rajayn doonaa dhaqso inaan hawsha aan u wada galno oo aan isu diyaarino doorasho. inta ka horeysa waxaan rajaynayaa mudanayaashu inay wada haystaan ajantihii. balina ajantihii aan isha isla marino isla eegno insha Allah billaahi kariim shaqadaynu qabanay iyo waxa inoo harsan hadii Ilaahay ka dhigo. كامدنا يلا صباح أجندها إن شاء الله بنا كريم أنسلاقنا قضب بان سود التاجي دونا إن شاء الله. وربحنتي قد جت شوكت هذا واكسو قد بني وربحنتي قد هذا واكسو قد بني حراركي هاقضب قصة هذا نسحنتي حرارك وحي نوي يعني هينين واكسو قد بني وحرارة وينو باقية وينو هرسنا ما يسنجران أنا سحنتي حساب حركة سند مالية كلابا كون يلا عتان واكسو قد بني qodobka shanaad waa doorashadii aqalka sare oo inoo dhimayay. qodobka lixaad waa kala xadeynta shaqooyinka hay'adaha fulinta. hawshaas guddi waa tii loo xil saaray. guddigaasi shaqadii bay ku guda jiraan. sida ugu dhaqsaha badanna way la wadaagi doonaan madaxweynaha oo markii horeba guddiga magacaabay. marka ay ka soo dhamaatay inoo soo gudubto baynu sugaynaa. waxba inagu hadda kama qaban karno. qodobkaasna mudanayaal saasaan uga gudbaynaa. qodobka 7 xaaladda wadooyinka Puntland iyo khidmadaha loo qabto hay'adaha wadooyinka. qodobka shalay go'aan gole baynu ku soo saarnay isaguna saasaynu kaga gudubnay. 8 wax ka bedelka qodobka 26aad ee xeerka maamulka gobolada degmooyinka iyo dhismaha golayaasha deegaanka dawladda Puntland. mudanayaal, qodobkan waxaan la akhrinay xeerkii doorashooyinka iyo xeerkii gobolada iyo degmooyinka waa kan. sidoo kale mudanayaasha la soo baxa dastuurka qodobka 44aad farqadiisa 5aad baynu la akhriyeynaa. dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 44aad farqadiisa 5aad sidan ay u dhigan tahay. sharciga ayaa xadidaya aagaga doorashooyinka ee golaha wakiilada iyo golayaasha degmooyinka. tirada kuraasta uu gobol ku yeelanayo golaha wakiilada iyo xubnaha golayaasha deegaanka waxay ku xidhnaanaysaa hadba inta uu leeyahay dadweynaha ku nool gobolka ama degmada. farqada 7aad ee isla qodobka 44aad baan la sii akhriyi doonaa oo iyana u dhigan sidan. inta aan la gudagelin doorashooyinka waa inuu jiro sharci gaar ah oo lagu hagaayo arrin kasta oo la xiriirta doorashooyinka. sidaa daraaddeed mudanayaal, qodobkan ajantaha lagu soo daray guddigii doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha cabasho kama ay soo gudbin haddii wax ka bedel xeerka lagu samaynayo. taasina waxa loo marayaa habraaca shaqada oo ah in wasaaradda ama hay'addu ay u gudbiyaan xukuumadda fadhiga koowaad ee ay yeelanayaan khamiislahana ay ku soo ansixiyaan madaxweynuhuna soo gudbiyo sida arrinta lagu guda galo. doorashooyinkii waxa la mudeeyay 25 October in la qabto
sidaa daraaddeed innaguna hadda ma abuuri karno wax keenaya khilaaf iyo mashaqo hor leh. sidaa daraaddeed qodobkaasna mudanayaal shaqadaas maadaama ay ka soo dhammaan golayaashii ay khusuusay iyadana saasaan uga gudbaynaa waxayna khuseeya maaha. qodobka 9aad ee ajantaheenna waa dabagalka xeerarka iyo go'aamada goluhu meel mariyay. kaasina go'aankeenii shalay guddiga inoo soo gudbiyeen ee aynu go'aan gole ku soo saarnay baa ku jiray. qodobkaasina waa ka gudbay. qodobka 10aad waa soo gudbinta heshiisyada ay xukuumaddu gashay. qodobkaasna shalayto go'aan gole baynu isagana ku meel marinay oo go'aankeennu gole ayuu isaguna ku jiray. isaguna sidaasuu ku gudbay. la xisaabtanka xukuumadda qodobkaas waa qodob muhiima, laakiin markaad eegto waqtiga iyo doorashada iyo waxa isa saaran hadda ma aynaan gudageli karno, waqtigu inama siinayo. waxa sidaa daraaddeed qodobkaas mudanayaal waxay noola muuqatay annaga shirka guddoon ahaan inaan macquul ahayn hadda inaynaan la xisaabtan aynaan furi karin ee aynu doorashadiisu diyaarino. waa jeclaan lahayn markaa qodobkaasna aynu galuhu u nala qaato in aynu sidaa uga gudubno mudanayaal. waa tahay qodobka 12aad waa soo saarista go'aan gale oo la xidhiidha doorasho ku sheegay Somaliland. mudanayaal baa kolay soo daray doorashadaas waa laga soo gudbay. natiijo wanaagsan baana runtii inagu oo taariikhiya baa goobihii la filayay inay waxaas ka dhacaan ka soo baxday. doorasho ku sheegna kama hirgelin Puntland, marka ma garan karayo waxa macnaha ay sameynayso hadda inaan nagu go'aan ku soo saarno mudanayaal. kolay mudanayaal baa ku soo daray, mudanayaashii hadday fadhiyaan dee way ka hadli karaan, laakiin qodobkaasi muhiim waa nala noqon kari waaya annaga shir guddoonka markaanu eegnay aanu isla qiimaynay. miyay jiraan markaa mudanayaal qodobkaas si gaara uga hadlay oo u xiiseynaya u danaynay? haddaanu jirin isagana aynu ka gudubno mudanayaal. qodobka 13aad waa dhammaystirka xubnaha maxkamadda sare iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga. mudanayaal maxkamadda sare waa dastuuri, muddaxileed bay leedahay. muddaxileedkeediina wuxuu ku eg yahay 15 August. 15 August waxaa ka dhiman 20 beri. innagu markaa ma kala diri karna hadda. waxay markaa ku habboon tahay in xilligeeda uu dhammaado. xilligeeda markuu dhammaadana madaxweynuhu uu soo magacaabo xubnihii maxkamadda sare. xubnaha maxkamadda sare oo aan la dhisnayn oo maxkamadda aan dhisnaynna maxkamad dastuuriya uma aynu gudbi karno oo way kala horeysaa shaqadu. qodobkaasna mudanayaal inaan sidaas dee isagana uu ahaanaya aynu uga gudubninaa. qodob keliya marka hadda inoo yaalla ee muhiimka ah waa doorashada aqalka sare. shir guddoon ahaan annaga xalay madaxweynaha waa la fadhiisanay insha Allah billahi kariim. hawshii doorashadana waan isu diyaaraynaa insha Allah billahi kariim. waxaan rajaynaynaa maalmaha inagu soo foodale dhow inaan maalinta saxda ah ee aan doorashada qabanayno aan golaha la wadaagi doono insha Allah billahi kariim. guddiga doorashadana magacaabi doono doorashadii aan isu diyaarino markaa mudanayaal.